Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadlaynaa dalka Indonesia. Dal loogu naanaysa in uu yahay dalka quruxda, dal dhaca dhulbaraha caalamka, lehna beera cagaaran iyo hawdad oo uu roobka si joogto ah ugu da'a. Intaanan horay u sii gelin muuqaalka, hubi in aad ka mid noqotay bahda aqoonsaad. Hubi in uu kanaalka kuu saaran yahay subscribe, sidoo kalena aad furatay gambaleelka. Muuqaalkana like saar, mahadsanid. Dalka Indonesia waa dal dhaca qaaradda Aasiya. Dalkan wuxuu xuduud la wadaagaa dalal badan oo ay ka mid yihiin Papua New Guinea, dalka Timor ee bari. Sidoo kalena waxay dhanka badda marinbiyoedyada cariiriga ah xuduud kala leedahay dalka Singapore iyo dalka Malaysia iyo Philippines oo ay xuduud kala leedahay dhanka waqooyi. Saasi la mid ah waxay xuduud kala leedahay dalka Australia dhanka waqooyi. Dabcan dalka wuxuu xuduud la leeyahay dalal badan oo la soo tirikoobi karin. Dalkan badkiisa wuxuu gaarayaa 1.505 milyan oo kiiloomitir iskuweer ah. Tirada dadka ku nool waxay gaarayaan 267.7 milyan oo qof. Dalka Indonesia wuxuu dalalka kale ee caalamka kaga duwan yahay in uu yahay dhulka quruxda. Wuxuu dhacaa dhul baraha caalamka, wuxuuna kulansadaa beero badan oo cagaaran iyo hawdad uusan roobka ka joogsan. Buuraheedana waa kuwa leh aag soo jiidasho leh. Magaca Indonesia wuxuu u laabanayaa jasiiradaha Hindiya, waxaana lagala jeedaa luqadda Hindiga, waxaana lagala jeedaa jasiiradda. Caasimadda dalkan Indonesia waa Jakarta. Tirada dadka caasimadan degan waxay gaarayaan 10 milyan oo qof. Saa daraadeed waxaa lagu tiriyaa in dalkan uu ka mid yahay 5 dawlad ee caalamka ugu dadka badan. Saasi la mid ahna caasimadda waxay soo gashaa liiska magaalooyinka iyo caasimadaha caalamka ugu waaweyn. Magaaladan caasimadda dalka Indonesia ah waxaa ku wada nool dad cirq ahaan iyo jinsiyad ahaanba kala duwan. Meelaha uu caanka ku yahay dalka Indonesia. Dalka Indonesia waxaa loo arkaa in uu ka mid yahay dalalka leh magaalooyinka farsamada iyo ganacsiga. Wuxuuna caan ku yahay magaalooyinka ballaaran. Meelaha dalxiis ee ugu booqashada badan dalkan waxaa weeye matxafka iyo beeraha xayawaanada. Dalkan waxaa laga helaa goobo badan oo loo dalxiis taga, waxaana ka mid ah goobahaasi magaalada Jakarta. Ganacsiga dalka Indonesia. Indonesia waxay ku caan tahay ganacsiga iyo suuqaqa, waxaana xusid mudan dhaqaalaha dalkan waa dhaqaalaha ugu weyn ee bariga qaaradda Aasiya iyo mid ka mid ah dhaqaalayaasha dawladaha soo karaya ee caalamka. Indonesia waxay ka tirsan tahay ururka G20, waxaana lagu tilmaamaa in ay tahay dawlad farsamo oo cusub. Waxayna xagga kaalinta kaga jirtaa kaalinta 16aad. Waxbarashada. Dalkan waa mid xooggan xagga waxbarashada. Wuxuuna leeyahay qaar ka mid ah jaamacadaha ugu wanaagsan. Nidaamka waxbarashada ee dalkanna waa mid qasab ah. Ciidamada dalka Indonesia. Ciidamada qalabka sida ee dalkan Indonesia tiradooda waxaa lagu sheegaa in ay gaarayaan 476,000 oo askari. Ciidamadan waxay asaasmeen intii lagu guda jiray kacdoonkii qaran ee Indonesia sanadka markay ahayd 1945. Magaalooyinka dalxiis ee Indonesia. Indonesia waxay leedahay magaalooyin badan oo xagga dalxiiska ku wanaagsan, sida magaalada Bandung, waa haddii aan magac si sax ah ugu dhawaaqay. Magaaladan waxay leedahay ilo badan oo biyo ah oo diiran. Sababta ay biyaheeda la kulul yihiinna waxaa weeye waxay u dhowdahay goob baraakiin. Iyo magaalada Surabaya. Magaaladan waxaa laga helaa buuro badan oo u suubsan qaab silsilad ah. Sidoo kale waxaa laga helaa xeebaha ugu qurxan iyo badaha ugu saafisan caalamka oo idil. Sidoo kale magaaladan gudaheeda waxaa laga helaa jasiiradda Bali. Intaan ayuu muuqaalka maanta inoogu egyahay. Haddii aad muuqaalka wax ka faa'iiday, wax weyn maaha in aad like saartid. Waa haddii aad u aragtid in uu istaahila. Sidoo kale kanaalka ku soo biir. Waxaan kaa hubaa in aad halkan ka heli doonto barnaamijyo iyo muuqaallo xiiso leh, waxna kuu faa'iideeyay. Inta aan ku kulmi doono muuqaalkan kan xiga, waxaan inkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.